waa maxay ChatGPT maxayse tahay sababta qaar ka mid ah macallimiinta iyo barayaasha jaamacaduhu iyo sidoo kale fanaaniinta qorayaasha sheekooyinka iyo xataa saxafiyiintu ay uga walaacsan yihiin shaqadooda khubaro badan ayaa ka digaya khatarta ay AI ku keeni karto shaqada iyo shaqaalaha macallimiintu waxay aad uga walwal qabaan in ay qish ardaydu ku sameeyaan xilliyada imtixaamaadka iyo homeworkska horumarka laga gaarayo dhanka tiknoolajiyadu waxa uu saameyn weyn ku yeeshay shaqaalaha waana mid keenina doonta in dad badan ay camal la'aan noqdaan saynisyahankii weynaa Stephen Hawking waxa uu hore uga digay in artificial intelligence-gu uu sabab u noqon doono dhamaadka aadamaha tiknoolajiyadan cusub waxa ay saamaxaysaa in ay sida bini'aadanka wada sheekaysi kula samayso oo ay ka caawiso xalinta mas'alooyinka xisaabeed qorista sheekooyinka iyo waliba ka jawaabista su'aal kasta oo weydiiso xataa haddii aad damacdo in tusaale ahaan article lagaaga qoro burburkii Soomaaliya ilbiriqsiyo gudahood ayay kugu diyaarinaysaa sidoo kale waxa ay si weyn uga caawinaysaa dadka IT-ga ah xagga coding-ka habkani waa mid gabi ahaanba ka gedisan qaabkii aynu Google-ka ku naqaanay kaasoo si toos ah website ama linki kugu jiidaya balse tani waa sidii oo aad qof genius ah la sheekaysanaysid genius waa ay dhaaftay waa wax genius-ka ka awood badan ugu horeyn waa ay cidda ka dambaysa aasaaska OpenAI Elon Musk marka aynu soo hadal qaadno waxa ay nagu soo dhacaya shirkadda Twitter oo dhawaan la wareegay iyo shirkadihiisa uu awalba caanka ku ahaa ee Tesla iyo SpaceX mase ka warqabta in Elon Musk qayb ka ahaa aasaaska shirkadda OpenAI taasoo ah midda ka dambaysa samaysanka chatbot-ka cusub ee ChatGPT Elon Musk iyo madaxweynihii hore ee Y Combinator Sam Altman iyo dadyow kale oo maalgashadayaal ah ayaa ah maskaxda ka dambaysa abuuranka shirkadda sida weyn caanka ugu ah tiknoolajiyadda casriga ah ee OpenAI taasoo bishii November ee sanadkii hore ee 2022 soo deysay chatbot-ka ChatGPT kaas oo wax ka yar hal week ku gaadhay wax ka badan 1 milyan oo isticmaale taasoo ka xawaaro badan application kasta tusaale ahaan Netflix waxa ay ku qaadatay inay halkaasi gaadho muddo 40 bilood ah Facebook waxa ay ku qaadatay muddo 10 bilood ah halka ay Instagram ku qaadatay muddo 2 bil iyo bar ah haddii aad rabto inaad wax ka ogaato sida tiknoolajiyadan casriga ah ee aadamaha u anfacayso ama geesta kaleba sida ay dad badani qabaan ay saameyn taban ugu leedahay shaqada iyo shaqaalaha waxa laga maarmaan ah inaad wax badan ka ogaato ugu horeyn shirkadda OpenAI waxa la bilaabay aasaaska shirkadani sanadkii 2015 xarunteeduna waxa ay tahay San Francisco company-gan waxa aasaasay labada nin ee kala ah Elon Musk iyo Sam Altman iyaga oo garab ka helaya khubarada Silicon Valley sida Peter Thiel iyo Reid Hoffman sida la xusay shirkadani waa shirkad aan faa'iido raadis ahayn taasoo hadafkeedu yahay in la cadeeyo sida artificial intelligence-gu uu faa'iido ugu leeyahay aadamaha shirkadaha dib ka maalgashtay shirkadan waxa ka mid ah shirkadda Microsoft oo ku bixisay dhaqaale gaadhaya $1 bilyan 2018 3 sano kadib markii ay shirkadu timi Elon Musk waxa uu iska casilay gudida ama boardka OpenAI si uu uga fogaado khilaaf kasta oo mustaqbalka ah Elon Musk waa uu bogaadiyay ChatGPT isagoo leh ChatGPT is scary good waxa uu sheegay in OpenAI loo aasaasay in ay noqoto il furan iyo mid aan faa'iido doon ahayn balse labadaas midna hadda run ma aha ayuu raaciyay sanadkii 2019 OpenAI waxa ay sheegtay inay noqotay mid faa'iido raadis ah iyadoo aan ka tegayn hadafkeedii ay awalba ku taagneyd midda kale aan rabo inaan la wadaaga waxa ay tahay ChatGPT kama isticmaali kartid haddii aad joogtid gudaha Soomaaliya mahadsanid daawade sidee u aragtaa barnaamijkani ay soo kordhisay shirkadda OpenAI